gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in dib loo dhigay shirweynihii xisbiga sabab la xiriira xanuunka dunida faraha ba'an ku haya ee COVID-19 waxaa noo mudaysnaa bisha Juun horaanteeda shirweynihii xisbiga kulmiye ee afraad inaanu qabanno sida la wada socotaan waxaa dhacay xanuun dalka adduunyada oo dhan saameeyay oo aan intan maanta aynu isugu nimiyo in ka badan toonaan la isugu iman karin dadka shirka ka soo qayb galaya waa 1000 iyo dheeraad waxaanu go'aansanay inta xanuunkaas aynu la dagaalamayno oo ina dhaafayo shirkii inaanu dib u dhigno dhammaan xisbiga kulmiye taageerayaashiisa golaha dhexe iyo fulintiisaba waxaanu halkan ka ogeysiinaynaa shirkaas muddo dambe in la sheegi doono waqtigu dhacayo ilaa intaynu hadda ku jiro xanuunadana aanu shirkii inoo qabsoomeynin geesta kale mar gudoomiye ku-xigeenka wax laga weydiiyay sida uu arko hadalkii dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucud Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan arinta gudoomiyaha xisbiga Ucud oo sheegay shacabka reer Somaliland ee jamhuuriyadda Somaliland ku nool gudihiisa iyo dibadiisaba halkay ka taagan yihiin ba xisbiga kulmiye ka taagan yihiin runtii wax laga xumaadana way ahayd waanu ka xunahay waxaanay u taalaa sharci dejinta iyo wasaaradda cadaaladda wixii ay ka gaarayaan go'aankay ka gaarayaan kuwaas ay u taalaa anigu intaa u dhaafi maayo Faysal